جالية الصومالية هولن iyo nawaaxigeeda darsigani waa darsigii saddexaad ee maanta baxaya waana darsigii guurka ku saabsiisnaa ee uu inoo soo jeedinayay fadiilatu sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun falyatafaddal mashkuuran ma'juuran wafaqahu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله وحين صوت الممن مقدمات كهوري جوركا هي النكاح وأركانتي وغباهنا أما وحيا به مهم كواها وإنه كسو شيغنا إنه يهي نين يقبر سو حلال ويسكور سنكرة يولي إذن كيس الربو هي صيغة العقد legal contract وسيدو قابك ودعي وآهبين لقبول إيجاب إن بدنا وشاقه قبل دينو قورسنا يامين لو قوريي ككلنا وشاقه إنه أقبلي قور كاسي intaa waxaa raaca baynu leeyin markhaatiyaal ay jiraan intaasi haddii ay dhacdo waxayna muhiima baynu leeyin gabadhu hadday bikra tahay iyo hadday thayib garoob tahayba in idan la weydiiyo idanka garoobtu waa inay hadasho oo aqbasho idanka inantuna xishoodkeedaa loo aqbalayo haddii ay aamusto aamuskaa lagu meherinaya haddayse diidan tahay way ka hadli kartaa way diidi kartaa axaadiista nabigu calayhi salaatu wasalaamna waxay ku soo aroortay gabadh baa nabiga u timi jaariya bikra iyo mid tayiba labadaba laba xadiis baa kusoo kala arooray oo le aabahay baa i meheriyey meherkaana maan rabo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam nikaaxaasi wuu celiyey ama wuu diiday dabeetana waxay tidhi waxaan rabay in dumarku ogaadaan aabbayaashu inaanay waxba ku lahayna waan ogolaaday nikaaxii aabbahay uu fuliyey yani waxay tilmaamaysaa in idan la weydiiyo haddaynu hore uga sii soconno marka waxyaabaha sunanka iyo curfiga ku soo arooray sunnada waxaa ka mid ah marka nikaaxaasi la guntayo in khudbatulxaaji la akhriyo waa khudbadan had iyo gooraa maqashaan imaamado akhrinaya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا خطبة دير النوعاسة خطبة الحاج بالله إذا هذا ما لا أقوم سنة كوسا أرورتي وإن أراس كمركا لما هرينا يلغو فرفرته أنت وحي كدن بيوحوي يعني إن الله بركة أيوه ريرك اللو تهنية دي يقورك مسألة الصداقة وإن يد حقه ركو شاقين مهركو meherku yaraantiisa iyo badnaantiisu xad ma leh ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wain aradtum istibdaala zawji makaana zawj waataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shaya haddaad gabadh ka tegayso gabadh kala guursanayso oo aad middood siisay baa layidhi qintaar yacni maal tiro badan le aad siisay falaa ta'khuduu minhu shaya waxba ha ka qaadanina culammadu waxay dhahaan meherka ka yar baa barako badan kow meherka in la sheego oo markaasi la wada dhigo waa bannaantay in la sheego oo la isku lahaadaa waa bannaantay laakiin sidan soomaalidu ay isugu lahaatay hadhow dafirka iskaga dhadhow maaha ama isku lahaanshiya xad wuxuba u qiimo beelo waxaa dhacdaa dadka badh dee beri 10,000 lacag ahayd in 10,000 islaanta lagu meheriyey maantana 10,000 dee $1 maaha 10,000 oo shilin Soomaaliya waagii horena waxa laga yaabaa inay xoolo aad u tiro badan ahaayeen maantana $1 qiimo ridka inta halagii lagu rido maaha waxa haboon in la siiyo waxa kaloo haboon ama bannaan aan idhaahdo in meherka badh la qadimo badhna dib loo dhigo yani maalan $1 baad ku meherisay inaad 500 la qadintid ama 600 qadintid ama 400 qadintid baaqigana lagu lahaado iyana waa bannaan tahay waxa kaloo bannaan
meherba haddaan la sheegin se gabadh laga dhigto mehrulmathal bay leedahay kuwa hablaha iyada u dhigma wixii lagu meherin jiray ayay kugu leedahay wuxuun baan jirin gabadh aan sadaaq laba siinayn oo aan lahayn baan jirin isagu ma jiro sadaaq lii meher lii meherku mararka qaarkood xataa manfaco yar wuu noqon karaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku yidhi utlub walow khaatim kaatun xadiidana ha noqdee wax soo hele waxba soo waayey waxaa la yidhi wixii aad garanaysa qur-aan aan kugu merin inuu qur-aanka baro wakhtiyada dambe waxaa caado iska noqotay dadku inay yidhaahdaan kitaab qur-aana gabadha ha laygu meheriyo kitaab qur-aana haddii kamaal ahaan looga jeediyo qiimihiisa dee waa iska 100 karawna lagu soo furtaa soo maaha meelaha yani wax weyn maaha waxa ka roon maal la garanayo inaad samaysataan maal macruuf oo la garanayo in gabadhu qabsato inta maal la helayana nebigu muu odhan ninkan qur-aan baan kuugu meheriyey marka hore war wax doon baa la yidhi markuu waxba soo waayo uu yidhi waxba ma la soo waa ayaa la yidhi qur-aanka intaad garanayso ha lagugu dhigo waxa fiican markaasi gabadha in meher la siiyo meherkaasina inuu noqdo shay caadiya hadduu batana dhib maaha hadduu yaraadana dhib maaha laakiin dhaqamadana in lagu xidho meher aad u tiro badanoo inintu inay ceeboobayso haddaan kumaankum lagu meherin waa dhaqanka liitee canuusadan carbeed keenay in khaliijka dumarka la guursan kari waayo oo inantuun guriga lagu hayo sababtoo waxyaabaheed baa xoolo badan ka doonaya ama waxaa la rabaa xoolo badan in lagu meheriyo waxaase sharciga islaamiga uu khilaafsan yahay sharciga islaamiga asalkii waxa weeyaan gabadhana in loo guuriyo ninkana loo guuriyo meherkana inaan dadka lagu dhibin qofku wixii uu awoodo in loo sameeyo intaa kadib waxa weeyaan in la iclaaniyo guurka oo farxadiisa la muujiyo oo la tahniyadeeyo ayaa sunnada ah in la iclaaniyo oo loo barakeeyo laakiin waxaa fiican guriga muslimka ah shareecada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenka gabadhaada marka lagu keeno gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska marka la keeno luqada soomaaliyeed iyo lahajaadka tiro badane xaaskaasi marka ay kuu timaado sunnada waxa weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato dabeetana ducaysatid ku ducaysatid ilaahu wixii khayr aad ku abuurtay inay haleeshii wixii shar ay leedahayna ay dhaafi dabeetana aad ducaysatid 2 ragcadood oo sunna aad tukatid cibaado iyo alla bari in lagu bilaabo wakhtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo oo dumar isa soo qaaqaawiya qolo muusig tunta naaga heesa rag heesa bal aad moodo in nidaam gaaleedkii la qaatay ilaa xad aad arkayso gaalada marya cadcad iyo kaatun yaroo laysu geliye iyo waxaas waa nidaam gaaleedka waa kiniisadda wixii laga soo qaaday in halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysaa ubad baad rajaynaysaa meelaad ku xasishaad rajaynaysaa halkaad khayr ku asaasi lahayd yaa la bari yaad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd inuu wax fiican kaaga dhigo inaad shar ku asaastaa soo markaa in shar uun ka dhasha noqon maayo ninka camal raba inuu sameeyo ee yidhaahda macsaan ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo waxaa lagu ogolaya inaad farxad ku bilowdo haa inaad faraxdo waxaa lagu ogol yahay inaad samayso maxay casuumad waliima nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato waar cabdiraxmaan see waxu jiraan buu yidhi oo ilahay rasuulkiisiiyo waan guursaday buu yidhi wuxuu yidhi maxaad ka bixisay nuwaa min dahab buu yidhi waxaan ka bixiyey laftimireed in leego dahaba waxoogaa garaamaa weeyaanoo dahaba ayaan meheru siiyey dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat weliimo dhigo neefna ha noqotee laakiin waxaa kaloo soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid a inaan xoolana qalin ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey idan weliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo
in weliimo la sameeya waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo la sheego in reerkaa la isku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zine ahaynay dadku u ogaado oo la iclaamiyo weeyaan in la farxo weeyaanoo reer cusub oo la dhisay oo bulshada kusoo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo in la sameeyo cunnadaasi haddii aad waxhaysato muusir tahay inaad neef 2 3 waxaad qaali karta inaad qasho haddii aanad waxba hayseen waajibkuguma aha haddaad waxoogaa digira u walaaqdo waa khalaas waa waliima haddaad in beriis how samayso waa waliima wixii aad haysato uun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha asalku guurkaa fiican oo la buunbuuninaya laakiin cunnada maaha wuxu iyo in maqashan kale maaha waa in reer muslima la aasaasay waxa la buunbuuninaya oo laga rajaynayo ubad saalixa iyo dad khayr qaba inay ka dhashaan sidaa awgeed waliima wixii aad awooddaa waliimo ah cursiguna waa wixii aad awooddo walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waliimada 3 casho mararka qaarkood dhigi jiray 3 maalmood oo isku xiga 3 maalmood dadka aad casuunto oo cunno siisid haddii farxadda dumarku ay u baahdaan ama raggu u baahdo gabay iyo hees iyo waa la tirin karaa bishart culamadu waxay dhahdeen muusig iyo waxaasina inaanay la soconin xumana inaanu sheegaynin horta haddaad gabay maqasho ama hees maqasho shareecada islaamiga haddii aan waxan dheeraadka ahay naga dambeeyaan muusigan iyo baabkan ha dambeeya laakiin markuu hadalka yahay wixii afka awalba ku xumaana wuu ku xun yahay wixii ku fiicnaana wuu ku fiican yahay wixii ku bannaanaayo mubaaxa ku ahaana waa ku bannaan yahay yacni gabaygu wuxuu ka warramayo ama heestu waxay ka warramaysaa isweydiinta lown ma wax wanaagsan bay sheegaysaa waa bannaan tahay ma wax iska mubaaxa bay sheegaysaa wax iska bannaana aha waa bannaantay ma wax xun bay sheegaysaa waa xuntay tan iyada muusiga iyo intan leh dee wax kale kama warranta nin baa naag daba socday unbay ka warrantaa mayaad hees kale weligiin maqasho nin baa naag jeclaaday nin baa naag jeclaaday intaas baa lagu celceliya xikmad ku fadhida ama waa la farxi karaa waa la akhriyi karaa waa la wadi karaa dadka imanaya laakiin waxaa asala inay u yimaadaan inay duceeyaan fiicanta bay culammadu yidhaahdaan in dadkoo dhan loo yeedho dadkao dhan maxaa looga jeedaa yacni kuwa haysta iyo ku faqiira iyo kuwan inta badan dadku waliimooyinka waxay sameeyaan inta magaca la unbay u yeedhaan maya sharul wariima waxay yidhahdaan waata foqoradana loo diido kuwa waxhaystana la siiyo ninka waxhaysta yeedhistaad u yeedhay waa maamuus cunno kaagama baahnayn waa uun inaad maamuusayso ayuu arkayaa laakiin kan faqiirkii maamuusna wuu arkaa waxtarna wuu u arkaa inaad maanta qadaysisa waxtarna waytay waliimada waxay ku khayr badan tahay markaasi inay noqoto waliimo dadku ay wada wadaagaan oo ku faqiira iyo ku waxhaystaba in loogu yeedho iclaankaasaa sunnadiiya oo haddii la iclaamin waayo maxaa dhacaya ma asaxaysaa odagii inanta dhalay iyo ninkii gabadha guursanayey iyo markhaatiyadii iyo intaasaa loo yeedhay waa guursadeen waa loo guuriyey wixii ay cuncuni karayeen bay meeshaas kaga cuneen dabeetana gabadhiisii wuu iskala tegey guurkaasi ma asaxaya aroos iyo qayle iyo buuq iyo waxba toona lama samaynin haa dabcan wuu asaxaya hadduu arkaantii helo iyo shuruuddii ay u baahnayd wuu asaxaya weera guur xalaala isaguna laakiin sunnadu waxa weeyaan in la iclaamiyaa waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo aynu isweydiin karnaa waxa weeyaan imisuu ninku guursanayaa se kuwa ka xaaraama aanu guursan karin ila waxaynu idhi axkaamu ziwaaj baynu xoogaa ka sheegaynay kow 4 wax ka badan ma guursan karo fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa hulaatha wa rubac
afar ka badan ma guursan karo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii carabtii hore dad tiro badan bay iska guursan jireen. kuwii guursaday wuxuu ku yidhi inta kale iska sii daa, afar kala hadh buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. maxaa dumarka mamnuuca inaad guursato? waa laba qaybood. qayb weligood mamnuuc ka ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. qaybta weligoodba mamnuuca ah ee aan marnaba kuu bannaanayni saddex sababood midunbay ku yimaadaan. qayb nasab aa wadaagtaan. nasabka kuwa aad wadaagta aan kuu bannaanayni waa wixii adiga kaa farcamay ama adigu aad ka farcantay. wixii qof dumaree adigu aad ka farcantay, hooyo, ayeeyo, ha fogaato ama ha dhowaato, ma bannaana. wixii adiga kaa farcamay, inantaad dashay taadawowga ku seedkaasu si ahayd, ma bannaana. waxaan kaloo bannaanayn wixii aabbaha ama hooyada walaalla ah, habaryar iyo maxay iyo eeddo. habaryar iyo eeddo waxa kaloo la mida kuwa iyaga habaryar iyo eeddo u ahina waa la xukun. yacni awowgaa bay la walaaliyiin. awowgaa talla walaalkii aabbahabay maxay u tahy? ayay eeddo u tahy. carabtu waxay dhahdaan adigana eedday ku taho inagu ayeeyeenu dhahnaa, laakiin carabtu iyadana eedunbay yaqaaneen. marka fuqahadu markay camaadka ka warramayaan bay soo gelayaan. marka aabbaha talla walaala, awowgaa talla walaala, awowgaaga kale talla walaala, kuwa aad ku taxantay oo dhan wixii walaalla ee haweeni waa kaa mamnuuc. waa derajada koowaad un iyagase. derajada koowaad maxaan uga jeedaa? tay dhaleen mamnuuc kaamaha. eedadaa tay dhashaa waa maxay? waa inaabti iyo kuway soomaalidu uguba jeclayd. marka mamnuuc iyadu maaha, laakiin waa levelka koowaad. aabbaha gabadhii la walaala ma guursanaysid. awowgaa tii la walaala, awowgaaga ka dambeeya kii la walaala, wixii asalkaagu uu ka yimi wixii walaalla ahi ma guursanaysid. hooyadaana xaggeeda u kaxeeyana waa la mid. idan wixii khaal la yidhaahdo, habarya khaala iyo camaad, dhankaa doonto u tiriye, iyaguna mamnuucay ku jiraan. waxaa mamnuuca ku jira wixii hable kula walaala iyo waxay dhalaan. inantaad abtiga u tay, taad abtiga u tay, tay sii dhashay, tay kale sii dhashay, kuwaasoo dhammi waa kaa mamnuuc. waxaa kaloo la mid ah adeerka kuwaad u ahayd. walaalka ama walaasha wixii ay dhaleen waa mamnuucay ku jiraan. intaas nasab bay kaaga xaaraan yihiin. inna musaahara guur bay xaaraan kaaga yihiin. haweentaad guursato hooyadeed waa kaa mamnuuc. haweentii aad qabtay hooyadeed waxay weliba mamnuuc ku tahay caqdi oo qura inaad gashay. yacni caqdiga waxaan uga jeedaa xataa haddaanad u galmoonin. gabadh baad meherisay, waabaad iska furtay, hooyadeed ma meherin kartid mar dambe. haddaad u galmootay iyo haddaanad u galmooninba waa isku mid. mar haddaad gabadheed meherisay hooyadeed ma guursan kartid. cagsiguse waa inaad u galmootay. islaam baad meherisay, haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. haddaanad see u galmoonin oo aad furto inanteeda markaa waad guursan kartaa. marka cagsigu waa bannaan yahay, laakiin sida kale may bannaana. waxaa kaloo kaa mamnuuca wixii aad dhashay adiga kugu abtirsaday wixii ay guursadeen. inankaad dhashay, kaad awowga u tahay, kaad awowga u siitay, wixii adiga kaa farcamay wixii ay guursadeenee dumar ahaa, iyana waa kaa mamnuuc. iyagu caqdigoo quru mamnuuc kaaga yihi. mar hadduu meherba ku xidhay waa bes, adiga waa kaa mamnuuc. waxaa kaloo la mid ah kuwii ku dhalay wixii ay guursadeenna, aabbaha, awowga, kuwaasi wixii dumar ay guursadeen. intaasoo dumarina waxay mamnuuc ku noqdaan maxay? sabab guur. waa guur baa nasab ma wadaagtaan, laakiin guur ayay mamnuuc kaaga noqdeen. waxaa jira kuwo kale oo nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam alradaaca taxrum maa taxrum alwilaada wa ummahaatukum allati ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca qur-aanku uu tilmaamayo.
waa dhaqan aan Soomaalidu lahayn inta badan laakiin wixii aan naas ku walaalowdeen iyana waa mamnuuc islaan ayaa ilmo yaroo aanay dhalin ayay jaqsiisay naaska waa imise goor markay jaqsiiso culimada qaar waxay qabaan haddayba naaskaba ku duudo ka dhargo bes khalaas waa ku filanta laakiin madhabka shaaficigu waxa weeyaan inuu jaqsiiso 5 jeer 5 goor inuu naaska intuu nuugay ka dhargay oo iska daayay isla markaana uu ku jiro maxay da'dii yareeyay uu ku korayay caana cabko qura waha labadii sare hore uu ku jiro kaasi ilmaha islaantaasi naaska nuujisay wuxuu la mid yahay ilma ay dhashay oo kale maadaama ilma ay dhashay oo kale uu la mid yahay intii uu dhalinka waxa laaliya wixii mamnuuc kaga ahaan lahayd oo dhanba kaga isagana halka kan oo waa maxay walaaladii islaantana wixii kale ay dhashay ama odaygan islaantan caaneeya caana ka keenay wixii uu dhalay waxa soo dhan walaalba loo xisaabinaya wixii habar yar oo ahaa wixii eedawa yani sidii ilma ay dhashay wixii ku xeeraa mamnuuc ka ahaayo dhan reerka waad ku biirtay walaalaad ka tirsantay islaanta naaska ka nuugtay reerkeeda waxaad la mid tuun ilma ay dhaleen oo kale sidii ilmaha ay dhalaan wixii mamnuuc ka ahaan lahaay oo dhan ayaa ka mamnuuca idan saddexdaas shayba waa tahriim mu'abbad ma guursan kartid ilaa ahkaam guur baynu ka warramaynaa dumarka nasabku keenay aan ka warranay kuwa guurku keenay aan ka warranay kuwa naasku keenay aan ka warranay intaasi ma guursan kartid qaybna waa muharramaat laakiin waa waqti marbay mamnuuc tahay laakiin xaaladda haddaad ka baxdo way bannaanaan kartaa maxaa ka mid waan tajmucu bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf laba hablood oo walaalaa mar ma wada guursan kartid socanka maaha adoo gabadh qaba walaasheedna ma guursan kartid haddaad se iyada furto maxaa dhici kara walaasheed waad guursan kartaa markaa waxa mamnuuca un intaad tan qabto inaanad maxay tan kala guursan karin laakiin haddaad tan ama aad furtid ama ay kaa dhimato Soomaalidu dhimashada u yaqaan xigsiin baa leeysiiyay bay odhan jireen tu yaroo dan buu guursan jiray isla walaasheeda marka waanad kulmin karin laakiin midba gaarkeeda waad u guursan kartaa marka waa muharrama mu'aqqata waqti leh waxa la mid inanta aad guursatay habaryarteed iyo eedadeedna lama guursan kartid inan iyo eedadeed mar ma wada qabi kartid inan iyo habaryarteedna mar ma wada qabi kartid oo nabigu kaleey salaatu wasalaam ka xadiis ku tilmaamaya la yujma' bayna al-mar'a wa 'ammatiha wa bayna wala bayna al-mar'ati wa khalatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmin karo ama gabadh iyo habaryarteed lama kulmin karo yaan kale la guursan karin labaynu sheegnay Soomaa labadii walaalaa inaan la kulmin karin labadii habaryar ama eedayso ahaana inaan la kulmin karin waxaan kale la guursan karin oo iyadu waqti mamnuuca dee gabadh mehernin ugu xidhan miyaa la guursan karaa maya iyana lama guursan karo ka waran hadduu furo ay ciddadii ku jirto iyana lama guursan karo marka waxaan la guursan karin iyadana gabadh ama la qabo ama ciddo ku jirta iyana lama guursado intaasi waa mutallaqaadkii waa yani waa kuwii waqtiga xaaraanta ahaa waxa iyana la mid gabadhaad 3 furtay ka waran gabadhaa 3 talaaqood dhamaysay ee kala tagteen iyana waqti mamnuuc ka tahay Soomaha waa waqtigee intaanay guur damba soo marin guurka Soomaalidu ay sheegtay muxallalka la isaga waxba kama jiraan waa gabadhaasi inay sideeda u guursato ay dabeetana sideeda ninka u kala tagaan oo iyadoo magaaladeeda joogto madax bannaan ay hesheen markaa waad guursan kartaa laakiin kan waan u yara guursanayaa iyo dabeetana waa haddana u yara furayaa isagu ma jiro looma guursanayo waayo waxaynu tilmaami doonaa xagga dambe kaga warrami doonaa guurar aan bannaanaynba
ayaynu ka warrami doonaa. waxaa kaloo isna bannaanayn bay culammadu yidhaahdaan zaaniyaddana lama guursado ama zaaniga. u fiirso, ninka suuqa iskaga jira waxba ha u guurinin, inanta suuqa ku jirtana lama guursado. laakiin hadday toobad keenaan haa, markaa hadday toobad keenaan oo inankuna xumaha iska daayo ama inantu ay xumaha iska dayso oo ay dad wanaagsan noqdaan, toobaddu dee dembiga hore ilaahay wuu ku dhaafaa. gaalnimadii ka weynayd baa dee laga toobad keenaa, socaynka maaha. mar haddii gaalnimo intaad ka soo baxda ilaahay toobadaada aqbalayo, xumo kale inaad ka soo baxdo ilaahay subxaana wa tacaala toobadaada u aqbali doonaa. laakiin inta ay ku jiraan gabadh baytu dacaara suuqa xun ku jirtaan, kaalay wadaada wii guuritan baan guursanaya, ma banaana, lagu guurin maayo. intaasi waa intii wakhtiga mamnuuc ahaa iyo intii abid mamnuuc ahayd baynu soo marray. waxaa jira nikaaxyo culammadu ay yidhahdaan waa faasid, iyagu ma bannaana. nikaax waa nikaaxu shikaar bay yidhahdaan, oo innaga kan dhaqankeenna inta badan kuma jiro. waa laba gabdhoodoo la isweydaarsado aan meher layska siinin ama xoola layska ana inantaada si ana taydan ku siinaya isu dhaafsanno. dhaqan soomaaliga kuma jiro. ama walaashay baan ku siinaya walaasha aysi kuma jiro dhaqan soomaaliga. nikaaxulmuxallal waa kii aynu soo sheegnay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ilaahay lacnadiisu naxariista alle ha ka fogaado qofka wax xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynaya. walidaalika culammadu waxay idhahdaan ma bannaana in gabadh inta saddex lagu furoo la kala tegay inuunan yidhaahdo waan guursanayaa, una waxaan u guursanayaa inuu maxay ninkii kale aan u furo. waayo waxaanad ku guursanaysaa waa maxay? waa biniyati, maxay inaad furi doonto. ma bannaan yahay aziwaaj biniyati talaaq aslan, inaad guursato inaad furi doonto? culamo badan waxay qabaan inaanu bannaanayn. waxaa kaloo mamnuuca nikaaxulmutca, gabadha muddaan qabayaa dabeetana waa iska furaya. shiicada isticmaasha. islaamka bilowgiisii horuu bannaanaa, kadibna waa la mamnuucay. waa gabadh inaad guursato oo marka horeba guurkiinu uu ku ahaado na sanad baynu isqabaynaa, dabeetana caqdiga waxaa laydinkugu meherinayaa gabadhaa inaad sanad isqabaysaan, sanad kadib waa furantay, waa kala tegaysaan. haddaad doontana dee sooba yareeyana 2 saacadood baynu isqabaynaa, soo maaha? maxay kaga gedisnaanaysaa markaa tan suuqa laga kiraysto? haddaad tiraado wadaad gabadhan ii guuri 2 saacadood ayaanu isqabaynaa, 2 saacadood meheraa ku dhagsii. shiicadaa ku dhagsiisa. dad badan oo afrikaan oo la shiiceeyey, dumarka cadcad baa lagu shiiceeya 2 saacadood loo meheriyey. asliyan nikaaxulmutca ma bannaana. intaa kadib, intaasi waa nikaaxyada aan bannaanayn iyo nikaaxii bannaanaa iyo nikaaxa bannaanay wixii uu ku bannaanaa baynu soo tilmaamnay. waxaa inoo hadha inaynu sheegnaa markaa waxa weeyaan xuquuqda la isku leeyahay labadan qof ee isguursaday. labadan qof ee isguursaday waa guri cusub iyo 2 qof oo isku cusub. qofku markuu gurigooda joogo, gurigooda qaab baa looga dhaqmaa, waxbaa laga cunaa, qaab baa wax loo cunaa, qaab baa wax loo karsadaa, reerku qaab buu isugu xidhan yahay. environment, bii'ad baad ku soo kortay. inanta tanina bii'ad taada ka gadisan bay ku soo kortay. marka la isu yimaado waxaa isu yimaadaa 2 qof oo 2 guro kala nooca ka kala yimi, 2 dhaqan kala wata, hadday doonaan 2 fikradood kala wata. waxay idhaahdaan inta badan qoladan ixsaa'iyaadku guurarka dumaa inta ugu badan 6 bilooda horey dumaan bay idhahdaan. 6 bilooda hore sababtay u dumaanna waxa weeyaan bay yidhiin waa cultural coalition ka dhacaya, waa dhaqamada iskhilaaf badan. shahrul casal kunbaa madaxooda ku jira iyo baahiyihii ay qabeen siday u gudan lahaayeen ayaa madaxooda ka guuxaysa. markii la wada hadlayay laysu sheekaynayana qof waliba labeentuu sheegay, socaynkaa maaha.
nina inanta markaad la hadlaysa ma tiraahna nin yara gacan adag baan ugu ahay ama marka iskuursataan bay ogaanaysaa in gacantu go'ay ay tahay laakiin sheegi maysid marka hore idan nin waliba markuu guursanayo Soomaalidu maxay yiraahdaan beenna waa lagu xarageeyaa runna waa lagu dhaqaabay oo jiray odayga Soomaali ala kulli xaal qof waliba in qurux badan buu iska sheegay markii uu ama saawiya ama reerka wax weydiisanayay inantana inteedii quruxda badnayd baa la sheegay laakiin ficlan markay isu timaadaan maxaa dhacaya run baa la tegayaa intaadii fiicnaydna way muuqan intaadii qalloocnaydna way muuqan inantana waa kadalik inteedii fiicnaydna way muuqan inteedii qalloocnaydna way muuqan idan waxa loo baahan yahay guriga see loo idaareeyaa ama loo fahmaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa xuquuqdaasi zawjigee la isku leeyahay inay wax badan tahay kow marka hore ilaahay wuxuu yidhi dhexdiinna waxaa la dhigay maxay mawadda wa raxma kalgacal iyo naxariis xuquuqdana waxaa la yidhi ninku alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu raggu qiwaamat lbeyt guriga maamulkiisa isagaa loo dhiibay waa masalo si fudud in loo fahmo u baahan bini aadam meel isugu yimaada oo aan kala sarrayn hadday dhacdo noloshaasi ma suurta gasho bini aadam hadduu meel isugu yimaado waa inuu madax iyo majo yeeshaa waa in kala sarrayna jirtaa xataa dad hadduu wax isku darsado shirka samaynaysaan shirkadda waa in cidi madax ka tahay westranka idaaraadkooda waxa ka qaldan waxaa ka mid ah idaaro kasta oo la sameeyo westran ku taalla cid baa madax looga dhigaa guriga mooyaane saxiixa maaha guriga waxa la yidhi labadiinuba waa simantiin oo yaa maamula meesha laba maamula wada jooga ma macquul laba maamula inay meesha wada joogaan maadaama nolosha kaloo dhanba aanay suurtagal ahayn in hay-adi ay dhisnataan madax lahayni hay-ad aan madax lahayni ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahay jinsiga ragga la yidhahdaa maamulka la siiyey guriga marka la isugu yimaado waayo labadan qof mid baa ilaahay shaqu ugu talagalay maamulka guriga waxaa la yidhi ninka ayaa gacanta ku haynaya qiwaamadu markaa waa maamulkiiyo gacanta lagu geliyey maamulka gacanta lagu geliyey si xunna qofku wuu adeegsan karaa si fiicanna wuu adeegsan karaa saxanka maaha islaamku kuma odhan maamulka gacanta lagu geliyay dictatorship noqo madax adko oo wax walba taasi ma jirto maamulka gacanta lagu geliyay laakiin waxa lagu faray inaad u dhaqanto sida shareecada ku fartay sideedaba cid waxa maamulo looga dhigaa cidda uu maamulayo inuu shaqadana si fiican ay u qaybsadaan shirkadaasi markaas in la koriyo ay kob u kacdo maamuluhu hadduu la loolamo cidduu maamulayo ka war iska celi hadduu is idhaahdo dad shirkad managerku inuu is idhaahdo shaqaalaha iska celi yay ku soo gaadhin shirkad soconaysa noqon mayso shaqaalahaga waad horumarinaysaa waad tatwiirinaysaa si shirkadu ay u xoogaysato ay u socoto waxay ahayd ninku maamulo waxaa looga dhigay inuu qiwaama yeesho hogaamin waa leadership inuu leadershipnimo yeesho maaha inuu dictatorshipnimo yeesho sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walahunna mithlu ladii calayhinna walilrijaali calayhinna daraja walahunna mithlu ladii calayhinna haweenku waxay leeyihiin baa la yidhi waxa lagu leeyoo kale xuquuqda ay adigu sugaysid xaq la midaba iyaduna leedahay ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala laakiin walilrijaali calayhinna daraja waa darajat alqiwaama ragga se waxaa la siiyey darajo dheeraad oo ah maxay ta qiwaamada ah ta maamulka ah ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wacashiruhunna bilmacruuf sama in lagu wada dhaqmo guryaha yurub ceebta ugu weyne haysata waxaa ka mid ah in muranku batay furitaankuna tiro batay hadduu dhisan yahayna xagxagadkiisu tiro batay laakiin waxaan is leeyahay waa mismanagement environment cusubna waa la soo galay maamulkiina waa la garan waayey kow ragga ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf sama kula dhaqma baa la yidhi bilmacruuf baa la tilmaamay macruufku waa shay mutlaqa oo ku saabsisan curfiga dadka shareecada
bulshada dhaqanka curfi ku wada baa la yidhi curfigu wuxuu u baahan yahay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta waxa uu iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay kuwa ugu dhaqanka fiican islaamnimadii caqiidadu waa inay dhaqan isu bedelaan sida awgeed qofka mu'minka iimaanka qalbigiisa ku jira waxa ka markhaati kaca qaabka uu u dhaqmayo dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim raggiina akhyaartae ugu fiicanina rag waxa ugu fiican kuwa dumarka u fiican buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rag waxa u fiican kuwa maxay dumarka u fiican walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan wuxuu ku tilmaamayaa qaabka loo dhaqmo nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu soo galo caday buu ku bilaabi jiray wuu faraxsanaan jiray markuu guriga joogo ilaa xad ay caaisha tidhaahda ilaahay rasuulkiisiiyo markaad ii cadhaysantayo mar kale waan kala gartaa nebiga ale calayhi salaatu wasalaam caaishaay markaad faraxsan tahay iyo markaad ii cadhaysantahay waan kala gartaa maxaad ku garataa bay tidhi wuxuu nebigu yidhi markaad faraxsan tahayna aad raalliiga tahayna waxaad tidhahdaa warabbu muxamed markaad dhaaranayso nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartee haddaad waxoogaa dareensantayna waxaad tidhahdaa nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartay magacaygumaad ka hijrotaa buu nebigu yidhi yacni labada qof markaa inay isfahmaan baa fiican nebigu ilaa xad buu dareemi karayey marka ay wax ka sii yihiin iyo markay caadiga ka tahay waxaa dhaqanku uu ina baray nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenka sida loola dhaqmayo hadday tahay isku dhowaanshiyo nolosha wadaageeda weelka uu wax ku cabayo halkuu ka cabaabuu u dhiibi jiray yani halkuu ka kabadaabay ka kaban jirtay ama halka iyadu ka kabatay ayuu koobka u dhiibaa halka ay afka ka saarto isna afka saari jiray waxaa sunnada nebiga ku soo aroortay xataa inay weel qura ku wada maydhan jireen biyo qura intay dhexdooda dhigaan inay maydhanayeen oo ay leedahay markuu nebigu iga dhammaystaa baa dhahay inta iga tag biyaha iga dhammayni waxaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada ku soo aroortay ka mid ah inay wada beratameen isaga iyo dumarkiisi haweenkiisi caaishuu la beratamay markaasay ka dheeraysay iyadoo ina yaraa beri dambe oo ay cuslaatay ayuu yidhi waynu beratamaynaa markaasay tihi mee beratami maayo mee waa beratamaynaa buu nebigu yidhi cabbaar markay diiday markii dambe way aqbashay wuu la beratamay markaasuu ka dheereeyey dabeetana wuxuu yidhi tilka bitilka taatii u tuur buu ku yidhi berigii aad yarayd adigii mariga dheereeyey anna maantaan kaa dheereeyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxay tilmaamaysaa labadan qof xidhiirka ka dhexeeyay nooca uu ekaa ilaa xad ay iska beratami karaan oo orod lagu beratami karo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahy laa yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radya minha aakhara war qof mu'mini gabadh mu'minada uma cadhooda buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ma naco waayo haddaad wax ku nacdo wax kaloo aad ku faraxdaad arkaysaa buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam tan macnaheedu waa maxay qof 100% perfect ahi ma jiro miyuu jira qof bini aadam oo ceebka saliini maya qof waliba ceeb buu leeyahy qof waliba iin buu leeyahy qof waliba meeluu ku liitaa jira wuxuu ku liitaa jira see la yeelayaa markaa haddii gabadhiina waxay ku liidataa jirto ninkiina wuxuu ku liitaa jiro see la yeelayaa waa in la manage garayn karaa waa in la maamuli karaa in la wada noolaan karo iyadoo ducfigaada lays og yahay iyadoo layskabayo markaasi taa macnaheed waxa weeye nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof mu'mini gabadh mu'minada ma naco waayo buu nebigu leeyahy hadduu wax ay samaynayso wax necbaysto wax kaloo ay ku fiicantahy baa jiro lagu raaco lagu wato idan qofka bini aadamka positifkiisa iyo negatifkiisa markaad sugayso hadduu 60% 70% noqdo waa qof la wadi karayo maaha inaad tidhaahdo this and this 20% xun buu leeyahy oo ceeb masaa'il caynkaasi uu leeyahy masaa'il la wadi kara hadday tahay waa in la wado walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy istawsuu binisaa'i khayra war haweenka khayr u dardaarma buu nebigu yidhi war feer qalloocdaa laga abuuray feer qalloocdaa haddaas tidhahdee toosina way jabaysaa buu nebigu leeyahy yacni nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaab loo wada dhaqmi karaa mar kasta inuu jiro siibana ninka inay mas-uuliyaddu saarantay
والرجل الراع كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته بنبي قف ولبوا مسؤول qof walbana aakhira waxa la weydiinaya raciyadiisii waxa lagu weydiinaya waxa ka mid ah reerkii sida aad u maamushay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara maamulka reerku wuxuu u baahan yahay kow wixii naar lagu gelaya inaad ka ilaaliso wacdidid ilaahay baridid waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha baa nebi maxamed baa ilaahay ku leeyahy reerka far salaada idan reerka kow inaad khayr oo dhan ugu yeedhid waxa kale gurigaasi looga baahan yahay waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxdaa waa mamnuuc yani waxaa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah laakiin inay labadooda dhaafta ay xaaraan tahay oo meel kale inuu u baxaa waa xaaraan warka odaga iyo islaanta u dhaxeeya gaarka ahi shareecadu waxay tidhi inaan meel kale lagaga warramin ama meel kale aanu u bixin weeyaan waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nebigu tilmaamaya hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo farjigeeda ilaashato oo ninkeeda ateecdo waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha madax baad tahay laguna aqbali maayo haddii lagu yidhaha ka warran wax jira maaha waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda guriga qura maaha soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar soomaaliya loo dhibo madax baa tahay looma ogola inuu maamulay haddana dadkunba odhanay ma waxaan sidan la yidhaha macaynka lama aqbalayo asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa gurigu madax buu leeyahay madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan dumarku masalada waa inay fahmaan gurigu madax buu leeyahy yes madaxda waa lala talinayaa madaxda waxbaa loo sheegayaa madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ay ateecdo labada waalid iyaga xorriyaddooda ka tanaasulay daacadoodii oo ninkugu daray markaad nin yeelato waxa warkiisa la hor aqbalayaa ninkaa ka horeeya labadaada waalid qofka dumarka ah ninka qaba ayaa ka horeeya maxay waalidka haddii warku noqonayo inay iskhilaafaan walidaalika daacadeedii waxay taagantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabi baa shaam iyo meelahan bay yimaadeen mucaad ibnu jabal iyo shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi waar nebiga mudan in iyoba wadaadkoodii u sujuuday ma nebi maxamed nebiga wayno sujuud baabu iskala dhaca nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalam war waxaanaad waddaa waa maxay suu yidhi ilaahi rasuulkiisiyo shaam baan ka imiyo waxaan arkay iyadoo kiniisadda iyo kuwii loo sujuudayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuudaa ma bannaana qof kale loomana foorarsado lowyadana dhulka looma dhigo laysumana gaabiyo loomana sujuudo sharcigu wuxuu baneeyo ixtiraamku ugu jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo taasaa ah ixtiraam kama dambaysta ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan isagoo dad u fadli badan wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadka aad karaamaynayso laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala rabbuunbaa loo rukuuca loo sujuuda dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddiiba aan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa buu yihi ninkaaga u sujuud sujuuddu soo maha daacada halkii ugu dambaysay haddiiba uun laba qof lo odhan lahaa ha laysu sujuudo gabadhaan ku odhan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninkaaga u sujuud taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu daaca mutlaqa inay la timaado waxaa jirta gabadh maraykana waa tan la yidhi dunidu waa simanta rag iyo dumarku waa simayin muddaa laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warka kan uu tiro batay guryihii baa dhismi waayey gabadh maraykana waxay tijaabisay ninkeedii iyo wixiiba isdileen way ka tagtay dabeetana baxtay samaysay research waxay raadacaysay guryuhu maxay u dumaan baxdigeedii way waday naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo waraysatay naa maxaad samaysaa waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo
ninkii iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahay dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo markaynu tarjunno istaslimii lizawjik buug la yidhaaho naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhahday qortay buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali dabca gabadhii taajirad baabay ku noqotay buuggii yaraa waxay noqotay dadka marmuuqee wax la weydiiyo dabeetana waxaa bilaabmay ololo dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdilladana dee gabadhu ninka xoog badan mayso haddii laakiin ay tahay aan ismaqallo waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba idan waxa muhiimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weyn ee lagu leeyahay koowaad waa maxay waa xaqu taaca inay aqbasho ninka kan inay u hoggaansanato maadaama iyadu dooratoo guursatay gurigiisana inay u ilaaliso waxaan ku soo koobaynaa markaa xuquuq badan baa la isku leeyay oo xaqii nafaqada ah dhaqaalihiya ninkaa lagu leeyahy inuu dhaqaalaa bixiyo gabadha in la dhaqaaleeyo carruurteeda in la dhaqaaleeyo waxay u baahan yihiin in la siiyo dhammaantood ninkaa lagu leeyahy markaynu soo duuduubno waxaynu leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo guryuhu way dhisnaanayaan masaladan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi soo maaha bashar isu yimi oo aan wax isku qabanina ma jiraan bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro xataa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay oo intay haweenkii wax is yidhaahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay meel dabada iska tegey oo saxaabadii yaabtay oo la war kutiri kutaani soo baxay nebigiibaa dumarkii furay oo mushkiladii tiro badatay oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisan yahay waxa weeyaan sidee loo xallilaa mashkiladda how to solve the problem saad mashkiladda u xallilaysaa siiba guryahan dabadda yimi iyo reerahan dabadda jooga waa yeelkii hore waa laga soo fogaaday markii waddanka la joogay waxaa laga yaabaa gabadha qaraabadeed baa joogay eedooyinkeed habaryaraheed aabbaheed awowyadeed tolkeed ninka sidoo kale labadooda ka guracan cid la hadashaa la helayay cid qabataa la helayay xataa wuxuu ka xishoonayay wuu ceeboobayay oo dee reerka dhexdiisiiya wixii marka la ydhaho warkan jacjacoorkaee gabadhan sida u gelaya la ydhaho wuu ka xishoonayay wax badan oo culturally qofka ku xeeran baa jiray oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay laakiin markii dabadda loo soo baxay kow culturkaasoo dhammi wuu lumay cidiba kuguma xeerree keligaabaad joogtaa beriskana mid waliba gaarkiisa uu helayaa gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa ninkuna beriskiisa gaar buu heli karaa dabeetana waxay noqotay ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto maryaa inoo kala gurun ma waxba kale awalba isugu keen jiray shandadaada qaado ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku maryaha kala socdo oo u kala tago waxa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo carruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin waxaa qiimo la siiyey 2 kelmadood oo laysku qabtay 2 weedhood ama wax yar oo laysku qabtoo muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaayee kaloo dhan ee la samaynayey lagu ilaabay waxaa habboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo marka waxaan ku soo koobayaa uun haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo dawaysmi kara haddaan see la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha u ka yimaado maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum